wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaan idin hayaa wararkii ugu dambeeyay ee duqeymo culus oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan inta u dhaxaysa deegaanka Xaaji Cali iyo sidoo kale masaajidka Cali Guduud duqeymahan oo kuwii ugu darnaahay soo gaareen ilaa iyo saakay salaad subaxii ayaa waxa ay ka dhaceen deegaan u dhaxeeya Xaaji Cali iyo sidoo kale masaajidka Cali Guduud halkaas oo ay ka dhaceen duqeymihii ugu cuslaa abid sidoo kalena loo geystay ururka Al-Shabaab halkaas oo ay lala beegsaday qaar kamid ah horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo socday sidoo kalena watay mooto lugoodle waxaan kula wadaagi doonaa sababta iyo tafaashiisha laga helay in dadkaasi la beegsado iyo sidoo kale in ururka Al-Shabaab ay noqoto ama gobolka Shabeellaha Hoose ay noqoto meesha ugu daran ee duqeymaha haatan ay ka socdaan ugu horeyn hadii ay tahay markii ugu horeysay janaalka subscribe isar si aan kula wadaago xogahan muhiimka ah ee aan ku soo wado dhinaca kale waxa aan kula wadaagi doonaa duqeymo kuma la mid ah oo sidoo kale aad u cuslaa sidoo kalena ay dadku dhagaha qabsadeen sida aan ku helayno ilo wareendo kuwaas oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Sabiib iyo Caanoole ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo ay ku dhinteen iyagana horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo mudooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ku sugnaa sidoo kalena doonayay in ay qabsadaan deegaankaasi Caanoole iyo Sabiib si ay ugu soo dhawaadaan gobolka Shabeellaha Hoose qaybaha ugu muhiimsan ee Awdhiigle iyo sidoo kale degmada Afgooy sidoo kalena gobolka Galguduud gaar ahaan degmada Ceelbuur ayaa iyagana waxa ay ka dhaceen dagaal culus sidoo kalena ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay dagaal ku soo qaadeen degmada Baxdo ee ka tirsan gobolka Galguduud kuwaas oo ay doonayeen inay mar kale dib u wareegaan halse ahaatee dhibaato iyo sidoo kale dagaal culus ay kala kulmeen daawada xogahaas oo muhiimka iyo kuwa kale oo ka qarsoon ayaan kula wadaagi doonaa waxaan ka codsanayaa mar kale aan kuugu celinaa inaad janaalka subscribe isartid mar kale soo dhawow deegaanada hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay ka dhacayeen dagaalo culus kuwaas oo lala beegsanayay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe saakay waxa dhacay iyo xalay waqti qiimihii ugu badnaa ee sidoo kalena dhibaato badan u geystay ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay la beegsadeen diyaaradaha duuliyaha lahayn ee caawimaadka ka hela dawladda federaalka Soomaaliya waxa la yaab kale ayaa ah in markii ugu horeysay lala beegsaday laba nin oo sidoo kalena qaxinayay caruur ay ururka Al-Shabaab halkaas u deganeed maalmihii ugu dambeeyayna laga warhay halkaas oo ay gantaalo culus la beegsadeen waxa dhintay 5 kamid ah horjoogayaal sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay duqeymo culus u geysteen ee diyaaradahaasi sidoo kalena halkaas ay ku nafwaayeen halka qolo kuwa kale oo dhaawac ah la sheegay in ay halkaas kala carareen ururka Al-Shabaab duqeymaha gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhaco ayaa ah kuwa aan la hubin in ay dhibaato ku gaarto shacabkaas ahaatee waxa la xaqiijiyaa inta badan in qaarkood ay ku nafwaayeen ururka Al-Shabaab xubno ka tirsan deegaanka Xaaji Cali ayaa dhow iyo sidoo kale deegaanka masaajidka Cali Guduud ay ururka Al-Shabaab ka sabri waayeen iyagoo dagaalo culus ku soo qaatay sidoo kale mar kale dib u wareegay deegaankaasi masaajidka Cali Guduud halkaas oo 24 saac kadibna ay dawladda kala wareegtay duqeymana halkaas loogu bixiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dhiiradeen in mar kale masaajidka Cali Guduud ay gacantooda ku soo noqdaan waxyaabaha la yaab kale ayaa sidoo kale ah in dadkii ugu horeeyay sidoo kalena ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee gurmadka u fidiya ay ka mid yihiin beelaha dagaalkaasi ururka Al-Shabaab halkaas oo ay goos amaba ka haystaan in aysan halkaas gobolkaasi faarujin sababta ayaa ahna sababta loo kari laayahay gobolkaasi looga saari laayahay ururka Al-Shabaab Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa isaga daba noqday deegaankaasi deegaano iyo sidoo kale degmooyinka Cadale Aadan Yabaal iyo sidoo kale degmooyin hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan isagoo ka dalbanayay in ururka Al-Shabaab gobolkaasi laga sifeeyo sidoo kalena in xuduudda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la mid ah hase ahaatee wali ma cadda qorshe cad oo ururka Al-Shabaab looga saari karo deegaanadaasi ka tirsan ururka ururka Al-Shabaab gobolka Shabeellaha Dhexe wixii duqeymahaasi balaaran ee maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale xalay iyo saakabo khasaaraha hadii ay intaan ka badato iyo xogihii ugu dambeeyayba janaalkan Amiir Suleymaan ayaad kala socon doontaan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe isartid like sar muuqaalkana share garee aad iyo aad ayaad u mahadsantahay